waxaan rabaa maanta waa maalin taariikha oo xaqiiqdii aan dhihi karno maalmaha ugu qiimaha badan ee soo mara dalkan ayay ka mid tahay. sababtana waxay tahay dawlad walaala oo gacala oo saaxiiba ayaa dadka Soomaaliyeed ee ku jira halganka dib u xoreynta khawaarijta dalka looga xoreynayo inta dhiigna ku deeqeen wiilal iyo gabdhana ugu deeqeen haddana maanta soo raaciyay wax allaala wixii ay heli kareen oo agab agaadiid hadduu yahay iyo hadduu hub yahay iyo haddii tahay in la daweeyo dhaawacyadii wax ku gaareen khawaarijta ay ku dhibaateeyeen inay dalkooda u qaadaan ha noqoto intaas ayay isugu keena dareen. waxaad dareemi kartaa saaxiibtinimada iyo walaaltinimada qiimaheedii marka aad duruufaha kala duwan aad soo marto. dawladda Kenya oo awalba lagu yaqiinay inay shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay u gurmato ay soo dhaweydo oo ay marti gelido maanta mar labaad ayay haddana muujisay inay shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladoodu ay garab taagan tahay. waxaan ka mahad celinaynaa wax walbo oo ay ku bixiyeen qarannimadan oo ay ugu horeyso dib u dhiska dawladnimada wixii ay horey ugu bixiyeen haddana halgankan ay ku bixinayaan waa uga mahad celinaynaa. waxaan leeyahay walaalkayga aadan ee go'aansaday inuu dadka Soomaaliyeed maalin dhammaystiran la qaato maaragta soo muujinaya in gacalnimada iyo walaalnimada iyo saaxiibtinimada ay tahay waxa ugu dambeeya ee ummadii ay siiso. waa kaaga mahad celinaynaa imaashaaga waana kaaga mahad celinaynaa deeqda aadna soo gaarsiisay. dadka Soomaaliyeed way garanayaan qofka waqtiga adag ag istaaga iyo qofka hakrada way kala garanayaan. waxaan rajaynayaa jiilasha soo socda iyo anagaba inaan ka abaalgudno haddaanan ka abaalgudi weynana aan sheegno ayaa naga go'an. aadaa u mahadsantihiin dawladda Kenya shacabkeeda madaxdeeda iyo maaragtay dhammaan xubnaheeda kala duwan waa u mahad celinaynaa.